mar kale aad ayaad u mahadsan tahay cabdixafiid adiga iyo martida barnaamijka waa tahay daawadayaal kusoo dhawaada qaybta labaad ee barnaamijka arrimaha bulshada idinkaga imanaya magaalada Cape Town ee dalka Koonfur Afrika ayaa kusoo qaadanaynaa wareysi dheer oo aan la yeelanay Sheekh Maxamuud Maxamed Shible oo safar dacwadeed ku maraya dalka Koonfur Afrika balse marka hore kusoo dhawaada warbixin gaaban oo ku saabsan badda iyo munaafacaadkeeda badda waxa ay ka mid tahay mucjisooyinka eebbe koonkan ku abuuray waxaana xusid mudan inay ku nool yihiin inta badan nooleyaasha uu ilaahay abuuray taasi oo micnaheedu tahay in inta badda ku nool ay aad uga badan yihiin kuwa dhulka ku nool ee dadka iyo xayawaanka isugu jira munaafacaadka ugu weyn ee dadka ay badda u leedahay waxaa ka mid ah in wax kasta badda ku jira ay xalaal u yihiin dadka inay cunaan kuwaasi oo la sheegay inay yihiin cunooyinka kuwooda la cuno kuwooda ugu fiican oo nafaqaysan mucjisooyinka badda waxaa ka mid ah in badaha ay isku darsamaan haddana uu jiro wax kala qaybiyo oo aysan isku qaldamayn sida qur-aanka lagu sheegay waxa loo yaqaano barsakh badaha waxaa lagu kala gartaa midabkooda oo qofkii u fiirsada uu garanayo iyo weliba halka ay dhacaan juqraafi ahaan walow magacbixintu ee inta badan ka timid wadamada reer galbeedka haddaba qodobkani ayaa ku falanqaynaynaa meeshii lagu sheegay qur-aanka kariimka ee loo yaqaano marajal baxrayni ama meesha ay isaga darsamaan labada bad inkastoo qur-aanka uusan cayimin hal meel balse ay adduunka kaga taalo meelo badan oo ay ka mid tahay meesha aan hadda booqanay oo ah cirifka koonfureed ee qaaradda afrika gaar ahaan magaalada Cape Town waana meesha ugu xagayso oo ah meel dhul ah oo cagta saarto waxaana kaliya xagga kaaxiga ay yihiin bad isku darsantay markii aad buurtani fuusho oo si qoto dheer aad u fiiriso labada bad aad ayay u adag tahay inaad kala saarto labada bad kalarahooda iyo meesha ay isaga dhacaan balse waxaa kuu sahlaya inaad si fudud u aragto doobirkan laga sameeyey aalad casri ah islamarkaana kuu soo dhoweynaya marka aad labadaada indhood saarato oo si degan u eegto waxaa hoostaada imaanaya meesha ay labada bad isaga darsamaan iyadoo badiba badda kale aysan ku xadgudbaynin dalka Soomaaliya ayaa ka mid ah meelaha ay isaga darsamaan badaha iyo webiyada iyadoo labada webi ee aan leenahay ee labadooda ku darsamaan badda kuwaasi oo weliba ka mid noqonaya in biyaha dhinaca xiga ay yihiin kuwa macaan kuwa kalena ay yihiin kuwa dhanaan ah haddii ay jiri lahayd goob loo dalxiis tagana ay noqon lahayd meesha ugu dalxiiska badan ee loogu yimaado adduunka dacaladiisa inkastoo dalxiisayaasha qaarkood hablibiskooda aad loogu wanaagsan yahay diiniyan sida uu sharxayo Sheekh Maxamuud Maxamed Shible oo marti ku ah barnaamijka arrimaha bulshada laakiin adduunka waxyaabaha la yaab kale inay soo arkaan iska xiiseynaya inna waa inta muslimka aho waxaan adduunka lagu arkaya la yaab kale quraankuna sheegay baladna soo arag buu isleeyahay laakiin ma aha meelaha loo dalxiis tago ee waxay isaga yimaadaan midan Cape Town iyo South Africa ku taala kaliya ma badda cad iyo casiyo badda hibadooyinta Hindiya meel ay isaga daraan marajal baxrayni bay soo galayaan innaga Soomaaliya hadii la yiraahdo caalam dalxiis baan jirine umumka ayada laba meelood oo soo galaysay inuu leenahay mararka qaarkood hadayna saddex gaarin badda cas baabul mandab meesha la yiraahdo ee badweynta Hindiya kaga darto way soo galaysaa ayada labada webi aynu leenahay mid waliba baddu ku dara meesha badda uu kaga daro biyaha waa la kala arkaya marajal baxrayni way soo galayaan waliba iyagu waxay soo galayaan هذا عذب فرات وهذا ملح نجاج بدو ودنان كو وبيغنا waa macaan marka hadii cid ka shaqaysan jirto waxaan u maleeyaa dadka tan waa loo xayeysiiyay si gaar ah waxa loogu imanayay kuwa kala laftooda hadii loo xayeysiiyo waxaan u maleynayaa in loo dalxiis tagi lahaa ugama jeedo marihi Soomaaliya haddaan iyo dalxiisayaalaha loogu yeero ujeedadu maaha laakiin meelo badan oo xayeysiis hadii helaan dadku ay tagi lahaayeen baa jiraan haddaba Sheekh Maxamuud Maxamed Shible oo in badan darsay aqoonta diinta ee badaha iyo macluumaadka kale horena u tagay isla meeshan aan booqanay ee quraanka kariimka lagu sheegay ayaa weydiinay sheekha marajal baxrayni meeshii quraanka lagu sheegay ma halkaaba sootani maaha mucjiso rabbaani ah maxaase loogu tusaale qaadan karaa sidaas lagu kalan garan karaa halka ay labada badood iska soo dhacaan wuxuuna yiri aayadan quraanka iyo aayadaha la midka ah marajal baxrayni yaltaqiyaan baynahuma barzakh la yabghiyaan وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح نجاج يا آيات كلامتك كسو أروري waxay tilmaameen laba biyo isu yimid meelaha biyuhu isugu yimaadaana kaliya midan South Africa ee Cape Town agteeda ku taala maaha aayadu meel gaar ah ma magacaabin daliil meel gaar oo kamid ah sheegayana ma jiro aayada lafdigeedu waa caam meeshani way soo galaysaa meelaha biyuhu isugu yimaadaan ama laba badood hay isu yimaadaan ama bada iyo wabiyaal hay isu yimaadaan
laba badood iyo biyo ilaahay isku daray buu yidhi meel gaarana ma sheegin. marka haddii loo maleeyo meel gaara inay tahay oo ka mid a meelaha biyuhu isugu yimaadaan, fahamkaasi sax ma aha. aayaddu way ka mid meeshani, laakiin keligeed ma aha. horta meesha waxaa yaalla lafdulbaxri, biyo bada isku darmanaya wey. webiyada laftoodana baxri waa la yidhaahdaa. saa darteed culimmadu waxay isku qabteen arrimaha tilmaamayso labada biyo isku darmanaya ma laba badood baa mise waa bad iyo webi. aayadka qaarkood macnahoodu waxay tilmaamayaan biyo macaan iyo biyo dhanaan inay yihiin, sida aayadda ilahi subxana wataala ku yihi wahuwa aladii maraja albaxrayni hada cadbun furaatun, kan waa macaan aad ah, wa hada milxun ujaaj, kanna waa dhanaan aad ah. biyo dhanaan iyo biyo macaan oo isu yimid bay aayadka qaar magacaabeen. waxaa lamid a aayadda kale huwa aladii maraja albaxrayni hada cadbun furaatun saa'iqun sharaabuh, waa kuwa la cabi karo oo cabitaan wanaagsan. wa hada milxun ujaajun, kanna waa biyo cusbo oo dhanaan aada u dhanaan wey. taas way culimmada qaar tay u cuskadeen. waxaa laga hadlaya laba badood ma ahane waa bad iyo webi. labadubana tilmaamaha la sheego kalluun baa laga cunaa, doomaha mara, intaba way leeyihiin labaduba. haddaba haddii la yidhaahdo aayaddu maxay sheegtay, aayaddu laba biyo isu yimid bay sheegtay. mararka qaarkoodna qaarna macaan yihiin qaarna dhanaan yihiin. marna laguma darin qeydka iyo shardiga dhanaan iyo macaano. maraja albaxrayni yaltaqiyaan, laba badood way kulmaan, baynahumaa barzakhun laa yabqiyaan, waxbaa kale celinaya oo iskuma xadgudbaan baa ilah yihi subxaana wa tacaala. waxaa kale celinaya, culimmadu aragtiyo badan bay ka leeyihiin. qaar aad moodo aayadda tilmaanteeda yaltaqiyaanidu inay diideyso oo dhulkaa kale celinaya iyo oo biyo dhul udhexeeya weeyaan iyo biyo hawaa kale celinayso oo biyaha cirka iyo biyaha dhulka weeye la yidhaahdi iyo aqwaasha saas oo kaleeta, ama dee madaahibta qaarkood loola kacay oo laleeyahay waxaa laga hadlaya baxraynka badba maaha iyo biye waa ilaah iyo aadamahoo isku darmanaya, si muxidiin ibni carabi uu leeyahay oo kaleeta iyo waxyaabahaas oo kaleeta wax saxa maaha. daahirka qur-aanku laba biyaa isu yimid, mararka qaarkood qaarna waa macaan qaarna waa dhanaan, waxbaa kale celinaya. waxaa la kale celinayaay qur-aanku ma sheegin ma la arki karaa mise lama arki karo. laakiin cilmiga xadiidka waxaan xaqiijinay, hadda la xaqiijiyey, biyaha isu imanayo laba badooda iyo biyo isu imanayo webi iyo badah oo haddana layn kale celinayo oo kale xijaabayood mooday in la kala hayo ay ka muuqanayso. laga yaabo mustaqbalka dhow ama mustaqbalka in la gaaro in ilaahay bini aadamka tuso waxa u dhexeeya laftiisa in la arko. ama midab baa lagu kala garan karaa, ama dhadhan baa lagu kala garan karaa, ama socod iyo xawli baa lagu kala garan karaa. laakiin laba biyood arkayso ishu qabanayso isuna imanaya aan isna dhexgelinin, intaa way qur-aanku waxa uu sheegay. marka qaarkoodna qaarna dhanaan iyo qaarna waa tahay daawadayaal, waxaa mar kale idinku wareejinaynaa stuudiyaha koowaad ee tv-ga caalamiga universal iyo daadiyaha barnaamijka arrimaha bulshada cabdixafiid maxamuud jaamaca.